maanta halkan ka socdo oo ay isugu yimaadeen bahwadaagta hay'adaha cadaaladda ka shaqeeya ee wadanka oo wasaaradda cadaaladda isugu yeedhay waa shir loogu talagalay 3 bilood mar in la qabto lagu soo bandhigo waxyaalaha horumarka laga gaaray dhanka cadaaladda wadanka si loo hagaajin lahaa sidoo kalena caqabadaha jira oo u baahan wax laga qabto lagu soo bandhigo isla markaasna lagu xoojinayo wada shaqaynta hay'adaha kala duwan cadaaladda kuwa dawliga ay kuwa dawladda ahayn sidoo kale waxa lagu soo bandhigaa shirkaan oo lagu kala warqaadanayaan oo ugu talagalnay in uu noqdo meel lagu aruuriyo arrimaha u baahan wax laga qabto oo cadaaladda ah loogu wixii la hayo oo khayraad ama resources ah si looga faa'iideysan lahaa ugu habboon la ogaado laga fogaado in mataqaanaa aysan isdulfuulaan shaqooyinka la qabanayo ama waxa la duplication u simaan lagu xaqiijinayo marka shirkan ujeedkiisu horta intaas uu ahaa anaga wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa oo bahwadaagta cadaaladda ay la kaashanaysaa in wadanka laga hirgeliyo dib habeyn dhammaystiran arrimaha cadaaladda maxkamadaha iyo garsoorayaasha aqoontooda kor loo qaado iyo qalabkii adeegay ku shaqeynayaan xeerarkii ku shaqeyn lahaayeen la diyaariyo oo laga jawaabayo duruufaha hadda markaa jooga sidoo kalena xabsiyada iyo maxaabiista daryeelkooda iyo nidaamintooda wax laga qabto la xaqiijiyo inaan qof aan maxkamad soo xukumo xabsiga soo gelin sidoo kale la xaqiijiyo qofna uusan si muddo dhaaf xabsi isaga jirin hay'adaha sharcigu iyo dambi-baaris waxay xaq u leeyihiin qofku sharcigu muddo siinaya muddadaas waxa ugu badan 90 bari baa qofka la hayn karaa oo xabsi lagu hayn karaa oo sifo sharci xabsiga uu ku soo galay 90 barina waa muddada baaritaanka la samaynayo ay codsan karaan waxa weeyaan xeer aalinta iyo dambi-baaristu wixii intaa ka badan qofna kuma xirnaan karo xabsi hadduu soo xukunayn hufnaanta garsoorka iyo shaqada qabanaya in la xaqiijiyo ayaa ka mid ah waxyaalaha focuska la saarayo ama la wajahayo sidoo kale wada shaqaynta booliska iyo dambi-baarista in ayana kor loo qaado oo cadaaladdu waxay ka soo bilaabataa baarista meelaha lagu baarayo iyo aqoontooda iyo kaadirka joogay ayana ay qayb ka noqdaan shirarkan anagu marka waxyaalahan ku shaqeynayna waxa weeyaan waa in shuruucdii cadaaladda ummadda lagu ilaalin lahaa dadka nugulna lagu damaanad qaadi lahaa la diyaariyo dadkii ka shaqeynayay aqoontoodii iyo tababaradooda iyo xirfadooda kor loo qaado wada shaqayntoodii iyo hufnaantiina sidoo kale kor loo qaado caqabado way jiraan caqabado badan baa jira ama ha ahaato dhinaca mataqaanaa booliska gaar ahaan qaybta dambi-baarista ama ha ahaato dhinaca maxkamadaha ama ha ahaato dhinaca xeer ilaalinta laakiin caqabadahaas waa laga gudbayaa wada shaqayn iyo dib u fiirin iyo iskaashi baa laga samaynayaa garsoorka laftigiisa in la tayeeyo oo la tababaro oo qalabkii ku shaqeey lahaayeen goobahoodii adeegyadoodii loo qareemo wax loo raadiyo ayaa ka mid ah ujeedooyinkan ku shaqeynayno ujeedooyinkaas aan ka leenahay muhiimaddu waxa weeye wadankan in laga hirgeliyo cadaalad iyo saraynta sharciga qofka soo bilaadan wadankan ku nool uu helo damaanad sharci oo ah in naftiisa maalkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa la ilaalinayo qof dambiilaha ummadda dambi ka galana uusan dhuuman wixii hadda ka dambeeyana taa laga wada shaqeeyo